habeenkii 17 Ramadaan ay ahayd waxaanu habeenkaasi seexannay buu leeyahay laqad ra'aytuna yawma badr wama minna illa naa'im buu leeyahay maalintii badr naga midii wadaadna arka lahayd buu leeyahay ma jirin qof naga midii ilaa habeenkaasi wuu seexday ilaa rasuulullaahi mooyaane sallallahu alayhi wa alihi wasallam habeenkii dagaalka la gali doono dhammaantood way wada seexdeen nabiga mooyaane alayhi salaatu wasalaam nabigu isagu muu seexanin habeenka kan saxaabadii kale oo dhammi way seexdeen nabiguna wuu istaagay habeenkaasi geed buu tagay hoostii wuu tukanayay ilaahay buu baryayay ilaa waagu ka baryayay buu leeyahay wuxuu kaloo cali ibn abi taalib buu leeyahay habeenkaasi waxoogaa rooba ayaan helay oo lagu qabowsado roobkii markuu nagu soo da'ayna buu leeyahay dadkii dhirta hoosteeda ayay galeen dadka badhna wixii sitay maxaa la yidhahdaa tars ama gaashaanku dee harag buu ka samaysan arbiyaa wuu celinayay ragga badhna gaashaankoodii bay hoos fadhfadhisteen buu leeyahay badhna meelaha kan iyo dhirta ayaa roobka laga galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkaasi oo dhan ilaahay buu baryayay isagoo leh allahuma inta ahlik hadihi alfi'a laa tucbad ilaahow kooxdaa yar maanta haddii ay la halaago ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo yacni wuxuu tilmaamayay in islaamku jab ay u tahay dagaalkan maanta diin iyo diin la'aanun inay joogto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamiga inay quwoobaan inay ku xidhantahay dagaalkaasi inay guulaystaan wuxuu leeyahay cali ibn abi taalib siduu ilaahay u baryayay baa markuu waagu baryaana loo yeedhay iyadoo la leeyahay asalaa cibaad allah asalaa markaasaanu dhirtii ka soo wada hoos baxbaxnay buu yidhi gaashaamada iyada iyo wixii halkaas buu nebigu nagu tukiyey calayhi salaatu wasalaam isaga oo markuu salaaddii na tukiyey kadibna dagaal aad noogu boorriyey buu yidhi diidkaasi siduu sheegayay in roobkani soo da'ay ama inay seexdeenna waxa kaaga filanba aayaadka qur-aan ee ilaahay subxaana wa tacaala waa ka inoogu tilmaamaya in alla seexiyey oo qur-aan inuu soo degay إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وكا إلهي سبحانه وتعالى تلماميا إن أكسو دجيه هردو إيوه إن روب اللو سو دجيه آيات كقرآن بوضع تلماميا